kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijka ganacsiga oo toddobaadkiiba mar aad ka daawataan TV-ga Sahal Cable. barnaamijka maanta waxaan gebi ahaanba ku eegaynaa furitaanka meherad lagu caweeyo oo si casriyeysan loo hirgeliyay oo ku taala magaalada Boosaaso. Green Cafe waa meherad magac ahaan horay u jirtay balse hadda dib u habeyn lagu sameeyay loona bixiyay New Green Cafe. waxaa la wareegay Sucaad Nuur oo lahayd fikirka wax ka bedelka meheradan. haddaba markii la furay meheradaas oo aan ka mid ahaa dadkii ka soo qayb galay ee lagu casuumay ayaan mikrofoonka la dhex qaaday dadweynihii ku sugnaa goobta sida ay u arkaan New Green ta cusub. bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Faysal magaalada Boosaaso dadka ku nool dhalinyarada ayaan ka mid ahay. runtii aad baan ugu farxay inaan maanta ka soo qayb galo furitaanka xafladda New Green Cafe. runtii waxay kaga duwan tahay New Green Cafe waxay kaga duwan tahay ganacsigii hore loo furi jiray gaar dhalinyarada ganacsigeedii iyo hal abuurkeedii oo la maalgeliyay way dhalinyarada gaar ahaan hablaha dadka fikrada wanaagsan baa ka gooxaya in loo maalgeliyo aad bay fiican tahay. runtii ma malayn kartid qofka marka laga dulqaado culayska dhaqaale marka laga dulqaado waxa uu la iman karo. runtii ma malayn kartid meel aad ugu fiican weeye jawiga waxa weeye galabtii lagu nasan karo hadda maalintiin waa la iman karaa cuntooyin aad u macaan oo laga ilaaliyay sokor iyo saliid iyo waxyaabaha xanada laga qaado dhan. marka New Green Cafe mustaqbal bay leedahay abaayo waa dhiirigelinayna annaga dhalinyaro ahaan meel aan isugu nimaano waxa weeye waqti ku wada qaadano markaan u baahnaa barnaamij gaar ah samaysano aan nimaano ku wada caweyno ay noqon doontaa insha Allah hadii ilaahayno meherada guul ayaa rajaynayaa. ما شاء الله horto wax wanaagsan bay xamdi noo samaysay magaaladu waa u baahnayd macmacaan iyo yani galabti dhalinyaro inuu meesho dhalinyaro inay timaado ma aanan haysan markii hore meel aan aadno goobaan ku sheekaysano oo Boosaaso ah. runtii jawiga galabta ma sha Allah runtii aad baan ugu faraxsanahay in service-kan meheradahan magaalada lagu soo kordhiyo. New Green Cafe ana waxaan rajeynayaa insha Allah inay wax badan ka bedeli doonto service-yadii magaalada meheradu ay bixin jireen kuwa ka gadisan galabta ka aragno keegan iyo refreshment-gan aadka u quruxda badan dadka galabta ku soo dhaweysay. marka talabaadna waan dhiirigelinaynaa waana garab taaganahay cid walba oo runtii dhalinyaro ka ahaan la timaada aragti cusub ama ganacsi ama hal abuur ku soo kordhiya ama meherada ha ahaato ama ganacsi kale ha ahaatee. marka runtii aad baan u soo dhaweynaynaa waan rajeynayaa insha Allah tacaala inaan noqon doono meheradan customer-keeda koowaad aad baan u dhiirigelinaa waana garab taaganahay insha Allah. aad iyo aad maxaa isleedahay kaga duwan tahay meheradihii hore oo aynu ka shaahi jirnayba. runtii war dhafuur buu ku yaalaayo hadda service-ka galabta iyo hawada iyo neecawda qabow wixii cusub unba wax cusub soo kordhiya. marka waxaan rajeynayaa insha Allah tacaala in ay wax badan ka gedisnaan doonto inta maanta ka dambaysa galabta service-keeda aad baan ula riyaaqna u soo dhaweynaa insha Allah tacaala. waan rajeynayaa insha Allah xilliga Ramadaanka oo soo dhow meesha meel lagu afuri karo oo barxad leh oo meel dusha sare meel dul sare ku taala. marka runtii waxaan rajeynayaa wax badan kaga duwanaan karo meheradaha kaleeto service ahaan iyo price ahaan inta insha Allah tacaala. marka aad baan u soo dhaweynaa insha Allah. والله هذا ugu faraxsanahay aragtidayda meeshaan aad ila wacan tahay oo gabar yar oo dabaaqado hadda soo kacday oo jaamiciyadna ah marka aad ugu faraxsanahay cuntadeeda saxiga oo quruxda badan. Sucaad aad baan u aqaanaa waa gabar yar oo ma aragtay hadda soo baxday waxna soo baratay professionkeeda marka hore caafimaad u ahaa oo ma ahayn cuntooyin laakiin marka aragtay baahida loo qabo bay waxay samaysay in ay ku soo biiriso ayadoo jikada u gasho cunto caafimaad qabta saxiya ka samaysan cunto wadani haruur ka samaysan hada rootiyo kala duwan iyo cuntooyin kala duwan ba halka taal baqlaawayaashii alaabahan Suuriyaanka iyo Turkida iyaan ku naqaanay cuntooyinkii oo aad u habaysan bay sameynaysaa ayagoo timir la ayagoo xabsood la ayagoo lows la ayagoo hilib la ayagoo kalluun la bankeegyadii roodhiyadii oo ilaa 8 nooc ah baqlaawayaashii buskud macmuulkii marka aad ugu faraxsanahay iyo cuntooyinka kale caadiga ah ayaga aad iyo aad maxaa is oran kartaa dhalinyarta inta badan hablaha oo jaamacadaha ka soo qalin jabay ayaguna sidaas oo kale waxa kula talin lahayd kuwa fikradahaas oo kale waxaan kula talin lahaa farsamooyinka dumarka in la barto waxay kala taqaan farsamada dumarka gabadhaani sida loo sameeyo farshaxanada oo kale falaawarada way samaysaa
koobab ay samaysay oo dhoobo ka samaysay baa jira ayadana oo arkayay xinaha oo kale gabdha walaashlaheeda ayagana way yaqaanaan oo aad bay u yaqaanaan marka ayagoo dee hadda qaarkood accounting bartay haddana waxyaabihii dumarka baa hadda shaqada ku jirta markan xataa raggaa nala soo galay hilibkii qudaartii cuntadii marka cuntooyinka iyo maaragtay gabdhaha oo maaragtay sida styleka oo gabdhaha loo qurxiyo dharka tolistooda gabdhaha in la sharaxo la qurxiyo waxyaabahaas dhan oo wadanku u baahan yahay jawiga aad buu u degan yahay waa meel habaysan waa meel hadee magaalada dhammaan banaankeeda dabeeshii ugu macaaneed ka helaysid cunaduna aad bay noo cajabgelisay maasha allah aad iyo aad inta badan hadda meheraddan waxaa furtay gabar dhalinyaro ah inta badan dhalinyarta waxay ka cawdaan inaysan helin fikradahooda ganacsi cid u maalgelisa marka arrintaas ka waran maxaad leedahay wallahi inuu dhalinyarada ra'yigooda iyo maskaxdooda iyo caqligooda iyo waxay keenaan in la maalgeliyo oo meelaha furanayaan lala qabto oo la dhiirigeliyo si wadankooda dalkooda ay wax uga qabsadaan baan u jecelnahay madaxweynaha waxaan oranaynaa dadka saasoo kale maskaxdooda fikradooda u soo maalay in la maalgeliyo si fikrad ahaan meelaha furtaan wax loo yimaado la camiro si ay jiilka dambe oo ka dambeeya gabdhaha kale ay ugu daydaan saasaan is leenahay insha allah insha allah aad baan ugu faraxsannahay waa aad waxaan wanaagsan baan u aragnaa maadaama waddanka shaqala'aan iyo dhibaato badan ay ka jidho qofta dhallinyarada oo isku dayday iyadoon ciidan maalgelin lafteedii maalkeeda waqtiga inay ku bixiso waan ugu ducayna ilaahay ku galagbala insha allah awalan horta waxaan soo dhaweynayaa dadkii fikirkan iska lahaa waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa in aanu helno meel noocaan ah oo runtii fadhigeedu marka ugu horeysa uu aad u wanaagsan yahay haddana servicekeedu uu yahay mid aad u wanaagsan runtii waxaan oran karaa waa meel loo baahnaa oo dhalinyaro iyo waayeelba in la helo meel noocaana aad baan u soo dhaweynaya maasha allah wallaahi aad baan u faraxsanahay meherad aad u qurux badan oo jawi degan leh oo istiraatiijiyad iyo meeshii ku habbooneed laga furay wallaahi aad baan u soo dhaweynaynaa aad baan insha allahu tacaala ugu qanacnay soo dhaweynteedii iyo cunooyinkeedii iyo qaabka loo agaasimayo wallaahi waxay kaga duwan tahay cunooyinkana loo keenay dhammaan waa bilaa sonkor waxayna ka samaysan yihiin dhammaantood hayd ama sareen waa cunno aan qofka faadla'aan oo aan dufan lahayn oo waa cunno aan macaan lahayn oo aan sonkor lahayn waa cunno dhadhan leh oo aad u macaan qofkana qancinayso maasha allah waan leeyahay aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa arrinta ayada hore waxaa leeyahay sucaad aad iyo aad baa u bogaadinayaa aad baa ugu taageersanahay yani fikradda cusub ee la imaatay gabdho badan oo faceeda waxay u tahay dhiirigelin waxaa leeyahay xaggaa ka sii wad insha allah wallaahi waa horta marka koowaad waa meherad ka jawi duwan meheradaha kaleeto meel kore oo runtii qabow oo bilicdeeda iyo magaalada laga daawan karo aad u qurux badan bay ku taallaa sarfiskeeduna waxaad moodaa macmacaanka iyo waxyaalahaas inuu ka duwan yahay waxyaala magaalada meheradaha kale laga helo marka intaas waa isbedel qurux badan waxaana rajaynayaa inuu noqdo mid sii socda insha allah run ahaantii jawigan green cafe aan ugu nimid galabta mid bedelan oo jawigiisu bedelan yahay ayuu ahaa runtiina aad baan u soo dhaweynaynaa meheradan oo waxyaalaha badan laga bedelay oo dib loo habeeyey waxaan dhihi karaa runtii waa meherada keliya oo qaabka sidaan macmacaanada iyo magaranaysaa cunooyinkan fudud ka shaqaysa meherada keliya oo aan isleeyahay haddeer waa ay ka howlgasho gobolka weeyaan runtii anugu intaan muddo dheer baan gobolka joogay ma arkin meherad qaabkan u shaqaynaysa waana soo dhaweynaynaa runtii aad iyo aad waxaan dhiirigelinaynaa dhallinyarada magaranaysaa wax soo saarka magaranaysaa haddii aan la kuuran yahay ku soo kordhisay gobolka oo magaranaysaa meheradahan loogu talagalay nasniinta iyo cunooyinka fudud aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan leenahay hore u socda guusha waad gaaraysaan insha allah mid ka mid ah howlwadeennada Amal Bank oo ayagu maalgeliya hal abuurada ganacsiyada yaryar oo goobta ku sugnaa ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in ay hirgeliyeen howlaha ay bulshada u hayaan. Bismillahir Rahmaanir Rahiim aad baan runtii ugu faraxsanahay meheradan cusub ee New Green Cafe runtii Amal Bank ahaan waxaan nahay inaan aragno productii amaal gelinay waa wax runtii qaali ah. Gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga Puntland Maxamed Cabdi Waaberi ayaa soo dhaweeyay meheradan cusub ee New Green Cafe sidoo kalena sheegay inay garab taagan yihiin dhalinyarta hal abuurkooda ganacsi doonaya inay ka mira dhaliyaan. Bismillah
aad baan ugu faraxsannahay waxaan u aragnaa New Green Cafe meel cusub oo magaalada wax badan ku soo kordhinaysa bilicdeeda iyo fadhigeeda iyo horumarkeeda waana meel loo baahan yahay nooca meelahan oo kale in aad looga furo magaalada runtii haddaan nahay rugta ganacsiga aad baanu u dhiirigelinaynaa dhalinyarada iyo dadkan ganacsiyada cusub oo ku soo biiraya wadanka waana arrin loo baahan yahay magaalada wax badan bayna ka qabanaysaa insha Allah aad baan ugu faraxsannahay waana ku bogaadinaynaa insha Allah maanta galabtay oo waxay tahay galab axada oo meeshan laga furayo waxa weeye aad baan u soo dhaweynaynaa waana meelahan oo kale oo bilicda iyo wanaaga iyo magaalada wax badan ku kordhinaysa runtii waxaana loo baahan yahay gabadha meesha furaysa waa gabar dhalinyaro ah oo ganacsatada ku soo biirtay mar walbana ganacsiga noocan ah oo yarka ah anagu waxaan u taaganahay ama ganacsiga ha weynaado ama ha yaraado inaan dhiirigelino waxaan ku dhiirigelinaynaa in meesha socoto oo la fariisto dhaqaale ay ka samayso runtii waxa weeye ganacsigu ma aha midkii kaliya lala soo dego ama alaab la dhoofiyo ama alaab laga soo ganacsigu meelo badan buu galaa magaaladana waxa weeye waa magaalo ganacsi waa magaalo dadweyne joogaan waa magaalo u baahan meelaha habeenkii iyo subaxdii galabtii lagu nasto marka gabadha waxaan leeyahay hore u soco waana insha Allah waxaynu noqonaysaa arinteedu ganacsiga yani waxbay bilic ku soo kordhinaysaa iyadana waxbay taraysaa dhalinyarado dhan intaas aasaasan ugu boorinaynaa Sucaad Nuur Cabdullaahi waa gabar dhalinyaro ah oo lahayd fikirka dib u habeynta New Green Cafe haddaba su'aalo dhowr ah oo aan weydiiyay waa tan Sucaad iyadoo ka jawaabaysa ما شاء الله هذا أماتنتين أنا مقعي وحنا لها سعاد نور عبد الله فكر كان أنا ويربي يقول الشيء مدانا دبا أرداي الحمد لله ما أنت نوكو قوليستي وحنا قرب استاغي فملكيكا هو يدي آبهيغا وأنا أمهد علني آبهي هو يدي با قرب استاغي إلا قرب استاغين وهيركي ما أنت إقاسيين ولا وحفي عن قبر والهملة إني كهر قرت آمن قيدا mar walba ay ku dadaalaan fikradahooda inay ku dadaalaan riyadooda inay rumeeyaan mar walba ana muddo aan ku riyoonay inaan meel kaliya aan ka shaqeysanayo aan furto muddo aan raadinay alxamdulillah maanta waa dhex taaganahay meesha furtay iyo heerkan gaar waa aragtaan marka aan hadda dhalinyaro ahaan aan u hadliyo gabar walba oo dhalinyaro hamigeeda ku dadaashaan dheelaa Allah waxaan jeclahay waxyaalo badan inay keento hadda waxa adiga kafaygi adigu wixii maqaaxiya lagu yaqaan horta waa laga helayaa saddex waqti cuntadii oo laakiin cuntadii healthy cunto yar oo dabiici ah aan qofkii aan dhibaynin uusan ka sheeganin dib baan ku dadaalinaa inaan ka sameeyno ana fasamaystay waxa aan samaystay waaye yani muddo aan ku jiray aan sameynay marka wixii aniga aan qurqurxiyay waa keegi laakiin waxyaalo aad aan qurqurxsaday waaye waxay maalgeliyay Amal Bank oo maalgelinta waxa iska leedahay Amal Bank marka ayaga waa shirkad adigu maalgelinteeda ay siisay waana ku mahadsan yihiin maanta waxyaalaha badan aan ka furtay ayaga kamid ah jadaan leeyahay waxa weeye in cafeteria-deedu noqoto cafeteria caano oo wax walba aan laga heli karo waqti walba iyo saacad walba qof walba hamile oo riyo leh mar walba inuu ku dadaalo riyadiisa inuu rumaysto suu heer sare u gaaro waxaan u mahad celinayaa qof walba oo maanta xafladda ka soo qayb galay asxaab haday noqoto haday family noqoto khaasatan aniga inkastoo aabeyga iga maqayaan jeclaan lahaa aabey inuu ila joogo uu maqan yahay laakiin waxaan jeclahay inuu ila daawan doono daawadayaal waxaan intaas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka ganacsiga oo aad kala socoteen Sahal Cable TV waxaan ku eegaynay meherada New Green Cafe oo dib u habeyn lagu sameeyay intii barnaamijkani uu seegay waxay dib uga daawan karaan barteena YouTube iyo page-keena Facebook ee Sahal Cable TV waa anigu Cabdiweli Faarax oo idin leh waa inoo iyo toddobaadka dambe insha Allah